يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحصوبح يا آخر سمنك دول دأير ومان قابا وقرآن كأخرية إسلام كانوا آنوا إبافين كالحمودة وحيشيغيا هذا الكينبيجا وحين الدين تأقبحيا سدلاب وقبحه وحي لقرده. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وحددك صومري وقتي أنا قفك إيجينين أما أبي يلينين نحكو قاتي حولها محلال مسي حاران. markasta oo lagu dhawaado saacada qiyaamaha dadku waxa ay ka tagayaan akhlaaqda quraanka kariimka iyagoo indhaha ka lalinaya aayaadka Ilaahay iskuna xukumaya wax aan Ilaahay xaqiisa ka sugnaanin oo ka imanin. waxa ay beeninayaan qadarta Ilaahina waxa ay u caabudayaan istutus iyo dheeldheel. diintana waxa ay ku ballaysanayaan ujeedooyinkooda gaarka kuwaasoo calaamadihii iyo cadaymihii uu inoogu cadeeyay rasuulkeena subhanahu nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee sidan soo socda. أخوف ما أخاف على أمتي في آخر الزمان الإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجم. وحاول من دون dadka xilli qofka ku adkaysta diintiisa uu la mid yahay qof gacanta ku qabsaday dhimbil daba. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. waxaa ka soo horeeya saacada fidnooyin sida gobolaha habeenka madowga. waxa uu waabarisanaya qofku isagoo mu'min ah wuxuuna galabaysanaya isagoo gaala. wuxuu galabaysanaya isagoo mu'min ah waxaanu waabarisanaya isagoo gaala. رواية كلو وري أحمد رضي الله عنه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وحكو يبسني الدين تيسا سابان الدنيا أو ير. لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. كسولي ميس أمدي وناج إلا أو كفافه دحديدة إلمها شرع الدرادة كل شيء مرخو كفافنا وحاودوا إن إلهي عذاب كعاميلو. إن آدموها ay ka fogaadaan akhlaaqda fadliga leh ee uu waajibiyo quraanka kariimka ah sida cadaaladda, maxabada, salaanta, raxmadda iyo xafidaadda sharaftooda. talaabada ay insaanku kaga fogaanayaan wanaaguna waxa ay keentay in bulshooyinku dhaqan ahaan dibaan. dumista ay bulshooyinku la kulmayaan waxa ay sameynaysaa dhinacyo kala duwan sida kala furfurnaan dhex timaada bulshada, caruurta aan waalid la yaqaano lahayn oo ku bata bulshooyinka dhexdooda, musuqmaasuq ku yimaada shaqada iyo ganacsiga ay haystaan dadku, warwarka iyo xasilooni darrada oo ku dhex faafa dadweynaha dhexdiisa koror, cabitaanka khamriga oo kordha oo ay dad badan caadaystaan iyo isticmaalka daroogooyinka kale. sababahan oo dhan dartoodna aadamuhu waxay indhahooda ku arkayaan iyagoo dariiqii noloshooda cuduri ku jiro oo maalmihii uu dunida ku lahaana ay mugdi ku noqdeen. iyadoo tiro badan oo aan Ilaahay rumaysnayn ay nolosha noocaas ka doorbidaan inay istildelaan
arrimaha noocani waxay ahaayeen kuwo aad u sii fidaya qarnigii ugu dambeeyey waana calaamado muhiim ah oo inoo bayaaminaya soo dhawaanshaha dhammaadka dunida iyo saacadda qiyaame nabigeennii suubanaa nabadgelye naxariiso korkiisa haatee waxa uu inoo sheegay waxyaabo badan oo dhacaya ama imanaya marka ay soo لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. saacadda istaagi mayso ilaa ay soo baxdo xumaantu rixangoosnimadu iyo jaarnimo xumadu oo la aamino khiyaamoolaha lana khaa'imeeyo oo khaa'in loo qaato aaminka. من أعلام الساعة أن تظهر المعازف والكبر وتشرب. calaamadaha saacadda waxaa ka mid a inay soo baxaan muusiga kibirka khamrigana la cabo. cahdigii ay carabtu diin la'aanta ku jirtay may ahayn kuwo ay gacmahooda ku jirtay tiknolojiyadda casriga ah ee maanta jirta umana suuro gelin inay la socdaan guud ahaan calaamadaha koonkan aynu ku noolnahay. iyadoo cahdigii rasuulkeena suuban nabadgelye iyo naxariiso korkiisa haatee aanay haba yaraatee jirin tiknolojiyadda aynu maanta isticmaalno ayaa dhanka kale rasuulkii suubanaa ee maxamed ibnu cabdulaahi ibnu cabdulmudalib waxa uu muddo 4 qarni ah ka hor inoo sheegay inay marka la gaadho aakhiru zamaanka ay jiri doonto tiknolojiyada casri noqon doonto taas oo ka ay maanta horumarka cilmi ku sameeyeen basharka aadamuhu. ilaahay muu soo dejin xanuun ilaa uu soo dejiyey dawo. horumarka tiknolojiyadda ee dhinaca caafimaadku waxa uu bulshooyinka aadamaha dhaxalsiiyey inay gaadhaan waxyaabo badan oo aan suuragal u ahaan lahayn tiknolojiyaddan la'aanteed. لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. ma kacaysa saacaddu ilaa ay dadku ku dheeraadaan ama ku dheeratamaan dhismaha. haddii aynu yaro daalacno taariikhda dhinaca dhismaha ee dunidu soo martay waxaynu ogaanaynaa in horumarka laga sameeyey dhinaca dhismayaasha uu yahay mid qabsoomay intii lagu jiray dhammaadkii qarnigii 19aad ee taariikhda miilaadiga. horumarka weyn ee dhinaca tiknolojiyadda iyo adeegsiga washashka elektarooniga ayaa qayb ka qaatay dhisidda dhismayaasha dhaadheer ee daruuruhu ka hooseeya. axaadiista sharafta badanna waxay inoo caddeeyeen in dadku ay ku tartami doonaan dhismaha daaraha dhaadheer taasina waa waxyaabaha maanta la gaadhay iyadoo dalalka caalamku ay galeen wayna wadaan tartanka وكل دولة تسعى إلى إنشاء ناطحات سحاب أكثر ارتفاعا من غيرها. bini aadamku waxay u suura gashay inay sameeyaan diyaaradaha nooca ka dheereeya sanqadha hadalka iyo tareenada degdega ah ee muddada kooban ku gaari kara meel durugsan taasoo marka aynu eegno inoo caddaynaysa in dhab ahaan la gaadhay wixii uu xadiisku inooga sii warramay.
halkaa waxaa ah xadiis kale oo inoo caddaynaya sida uu wakhtigu maalinba taxigta isu bedelayo oo ugu sii yaraanayo intii lagu ogaa ee looga bartay. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. ma istaagaysa saacaddu ilaa uu wakhtigu isu dhowaado sanad, bil, jimce, maalin iyo saacadba. guud ahaan marka la eego horumarka laga sameeyey dhinaca nolosha, tusaale ahaan dhanka isgaarsiinta, daabacaadda buugaagta iyo xanaanaynta carruurta, waxaynu ogaanaynaa sida ay u qabsoontay ee xilligan u jirto tiknolojiyadii uu inooga sii warramay rasuulkeenni suubanaa, nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. intii aynu ku soo dhex jirnay barnaamijkeena waxaanu ku soo bandhignay axaadiista laga wariyay nabigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee kuwaas oo ka hadlayay calaamadaha saacadda qiyaame. dhab ahaan waxaynu aragnay inay muujinayaan aakhiru zamaanka, iyagoo inoo cadeeyay in xilligan aynu maanta noolnahay uu yahay waqtigii ka horeeyay ee ay ku xigtay saacadda qiyaamuhu. aayadaha quraanka kariimka ayaa si weyn iyaga uga hadlay calaamadaha qiyaamaha. aayadaha quraanka oo ka hadlaya calaamadaha lagu garanayo inay soo dhawaanayso saacadda qiyaamuhu. calaamadaha waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ka warramayso suuratul alqamar. قال عز شأنه: اقتربت الساعة وانشق القمر وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.